السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال iyo dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo aalaba kala socotaan telefishinka qaranka iyo sidoo kale radio muqdisho markale ayaan diranahay kula wanaagsan barnaamijka madasha dhalinyarada waxaanu maalin kasta ku soo maalin doolba ku soo casuunaa qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed kuwooda aragtida dheer maantana waxay gala qayb galaya oo barnaamijka marti nooga qadarka 30 daqiiqo ee uu socdo أحمد محمد نور الله يقانو ألفك يسيدو كري عبد القادر عمر عبد الله أوسنا الله يقانو فيتك لبدو با waxay nugula sugayihiin studio-ga telefishinka qaranka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho labadii nuba ku soo dhawaada telefishinka qaranka studio-giisa waa ku dhawnahay aku horeeyo maanta barnaamijkeena hadii aan horeba ka galo wuxuu ku saabsan yahay qodobka maanta aanu diiradda saarayna wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ma yihiin kuwa leh han siyaasi ah aku horeeyo أحمد بسم الله الرحمن الرحيم أنا أحمد محمد نور أحمد ألف هرتا دي أو رفيريو dhalinyarada hankooda siyaasadeed aad u wanaagsan yahay oo kuwa u diyaarsan hanka siyaasadeed marka waxa ka muuqata dhalinyarada fircooni siyaasadeed oo hadeertan u dhig taagayaan inay siyaasadda aad u la socdaan ka qayb qaataan marka waa dhalinyarada hadda aan aragtidna waxa waa dhamaantoodii haddii dhanka baarlamanka oo ku badan yihiin ilaa iyo dhammaan siyaasadana faraha kula jira siyaasadda dalka aad u mahadsantahay cabdulqaadir cumar cabdulle fiidka ku soo dhawow adigu dee waxaad tahay gudoomiye hore ee dhalinyarada qaranka ee dalka Uganda ayaad ahayd dabcan dibaddana waad ka timi in gudaha dalka ayaad hadda joogtaa وكم مقطع إن أيضا يرد الصوماليين أيريهن هن سياسية أو أي كغيب جري كران سياسة الدركة. ما سنت ولا العبد الساق حاجي سليمان أدي نمان بحضا إن تي في قرن الصوماليين إن إس إن تي في مرك الله قد على يرد حلي كان هذا اللي تعجيني هاي إن هن سياسة أو وناكسن أو إن ما دام على يرد أنت بدن population الصوماليين أيهم كو بدن meesha la rabay han siyaasadeed ay leeyihiin dhalinyarada xilligan ma jirto way jiraan dhalinyaro kooban ama numberkaas yarna hankoodu iyo siyaasadda marka ay galaan iyo qorshaha ay u galayeen waxa laga yaabaa inuusan ahayn mid si dheer oo runtii dhalinyarada Soomaaliyeedna wax badan u tiri kara marka inta yar ee leh waxaan oran karnaa waa dad noocaas ah laakiin hadda wax han weyn oo siyaasadeed oo isbedel dhalinyarada u keeni kara oo dhalinyarada hadda ay wadaan ma jirto oo muuqda okay dhawaan dalku wuxuu guurayaa nidaamka xisbiyada badan oo maalinba maalinta ka dambeysay Soomaaliya way ka soo kabanaysaa doorashooyinka waxa lagu soo gali jiray qaab odaytanimo 2016 waxa lagu galay koob iyo konton hadda laftigeeda ma saadaali karo laakiin waxa qorshuhu u yahay Soomaaliya in loo guuro nidaamka xisbiyada badan dalkana waynu ognahay oo dhalinyaradu waxa ay yihiin 75% dhalinyarada hadda Soomaaliya waxa la oran karaa aqoon-yahanada ayaa ku badan ma jiraan dhalinyaro doonaya in ay asxaabtaasi la furayo ama nidaamka dalka ee xisbiyada badan u diyaarsan inay qayb mugla ka qaataan cabdirasaaq waa su'aal wanaagsan marka loo fiiriyo hadda dhalinyarada dhammaan axsaabta siyaasadeed ee wadanka ka jirta waxa howlaha mishiinka shaqooyinka ay ku socdaan waxaa moodaa in dhalinyaradii ay yihiin laakiin marka loo fiiriyo dhalinyaradaas hamigooda iyo weli sheekadu waxay taagan tahay in dhalinyaradii ay yihiin in lagu shito sida tusaale ahaan oo kale qofka maanta marka uu rabo inuu wax karsado wax qasab waaye inuu helo waaye laakiin markii wixii qofka uu karsado xaabadii way dhamaatay meesha looga tagayaa wixii resultigii wanaagsanaa la qaadanayo waa cuntadii xaabada lagu weli marka dhalinyarada sidii waaye waxaa moodaa in xafladihii iyo abaabulada iyo siyaasadda iyo marka la ordayo ilaa iyo hadda dad odayaal ah in wixii dhalinyarada ay u qurxinayaan ilaa dhalinyarada lagama maarmo hadda maanta xisbiga ama ururka raba in uu dhaqdhaqaaqa ama xisbiga siyaasadeed waxa dhalinyaradaas lagu duulaya iyaga meel walba jooga iyaga ka shaqeynaya barnaamijyadii haddana berrita haddii xisbigaas uu guuleysto waxa weeyaan hamigii dhalinyarada marka hore waa meel sare kuma xirnayno dad jaranjaro lagu soo korayay un bay weli taagan yihiin marka waxaad moodaa dhalinyarada in galgalkoodu ha badnaado laakiin iyaga hamiga ay leeyihiin ama dhalinyarada aragtidooda weli waxa waaye garab iyo mid qaran ama mid guud ama dhalinyaro guud
oo mideysan oo han siyaasadeed oo wanaagsan oo in dhalinyarada cadadka ugu badan dalka maadaama ay yihiin awoodii dhalinyarada 75 wax yar maaha haddana maanta marka loo fiiriyo natiijooyinka wadanka laga gaarayo iyo kulli shaqo kuma laha marti bay ka yihiin waxaan jecelahay axmedow aan dhaho axmedow ma jirtaa isku xidhnaan ka dhex jirta dhalinyarada Soomaaliyeed horta dhalinyarada Soomaaliyeed isku xirnaan ka dhex jirto haddii si loo fiiriyo waa ka jirta oo ololaha kaleeto markii dhibaato dhacdo kaleeto dhalinyarada aad isku xiran yihiin haddii la dhihi lahaa dhankan oo haddaad la socotid qaraxii 14 October oo kaleeto dhalinyarada aad u kacday qaraxii oo ex control oo kaleeto dhalinyarada waa kuwa isku xiran oo dhiig isku shubayo oo badankoodii haddii la dhaho dhankan siyaasadana waxaa aad uga caawiyo dhalinyarada ku jirta baarlamaanka oo haddii u baahdaan xafiisyada dowladda oo kale ay usoo marayaan dhalinyarada oo dhalinyaradaas ay leeyihiin si loogu fududeeyo xafiisyada dowladda oo kaleeto dhalinyaradu waa kuwa aad iskugu dhex jirto oo aad iskugu baahan oo isgarabsanaya ma jira dalka waynu ognahay oo maamul goboleedada ayaa ka jira maamul goboleedada dowladda federaalka waynu ognahay oo dhalinyaradu waa ka qayb qaateen waana ku jiraan laakiin maamul goboleedada ma ka dhex muuqdaan aad ay u dhex muuqdaan waa maamul goboleedka hadda galmudug oo kaleeto inta ugu badan waa dhalinyaro xildhibaanada baarlamaanka oo ku jira aad ay ugu jiraan waxaan siinayaa cabdiqaadir ayaan siinayaa cabdiqaadirow ma jiraan dhalinyaro aan ka qayb qaadan horumarka dalka oo kale tusaale ahaan oo kale oo iyagu weli aaminsan nidaamkii laga soo gudbay qabiiliga ahaa ee qabiileysiga oo kale ama se qabyaalada ay weli ku dhex jirto way jiraan cabdirasaaqo dhalinyarada inta badan waxaa waaye dhalinyaro badan way jiiftaa inta baraarugsanna sidee loo toosi karaa inta baraarugsanna waxay ku baraarugsan yihiin weli ma aha han qaran ama isku keenid dhalinyaro qaran maaha waxaa laga yaabaa ninka maanta siyaasadda war ordaya in hamigiisaba uu yahay meel gaaban haddii beri xitaa uu kursigaas helo in hamigiisa uusan fogeen marka isku xirkooda dhalinyarada waxay u baahan yihiin in oo ay waxa weeyaan aragti guud in loo wada dagaalamo in waxa weeyaan isku xirnaan badan la sameeyo in dhalinyaradu ay dib isugu noqdaan war maxaa qaldan sidee dhalinyarada waxa weeyaan horumarkooda iyo midnimadooda looga shaqeyn karaa sidee xaqii dhalinyarada lagu heli karaa marka waxyaabo badan haddii dhalinyarada isku xirkaas la sameeyo waxyaabo badan oo maanta u suurtagal ahayn ayay markaasi suurtagal u noqonaysaa oo ah in xitaa wadanka natiijooyinka laga gaarayo oo kalenta ay saameyn ku lahaadaan waad maasantay cabdiqaadirow fiidkow marka uganda ayaad ka timi tusaale waxaanu ka qaadanaynaa ardayda ugandada ee soomaaliyeed ee qaranka uganda wax ka dhigata adiguna aad guddoomiye kasoo hayd qaabka ay isugu xidhnaayeen dhalinyaradaasi ayaynu ka duranaa qaab nooceeb ahaa xagga dhalinyarada marka loo fiiriyo uganda horta dhalinyaro badan baa joogta badankood waa arday kuwa kalena qaab qaxooti oo kale ayay u joogaan marka laakiin ardada marka loo fiiriyo wadankaas annagu waxaynu nahay arday isku xiran xagga waxbarashada mar walba isa saacida sidoo kaleenta haddii dhibaatooyin kaleenta ay la soo darsaan oo kaleenta ardaydii maadaama meel wadankii ka baxsan la wada joogo kaleenta iskaashi isgarabsigaas baa jira waxaa jirtay xitaa in gobolada dalkaasi uganda oo ka fog caasimadda oo anagu ku sugnayn oo kaleenta in isku booqan jirnay oo waxa weeyaan xilliyada fasax oo kaleenta intaan baxno intaasoo kilomitir gobollo fog intaan tagin ardaydii soo booqano annagoo markaasi isku muujinayno midnimadaas isku xirnada waxaa jira dad aan arday ahayn adiguna waxaad ahayd guddoomiyihii dhalinyarada ardayda soomaaliyeed baad ahayd laakiin waxaa jira dad aan arday ahayn oo soomaaliyeed oo dalka uganda tegay sifahay doonayaan baha ku tagaan dadkaasi waxa weeye dad u kala baxaa waaye dhalinyaro haween ama se dad dhoofufba u tegay ka dhalinyaro ahaan maadaama ardayda aad tihiin maxaa u qaban jirteen inta badan horta waxaan isku dayi jirnay oo xoogga saari jirnay dhalinyarada aanan ardayda ahayn nidaamka waxbarasho aanan ku jirin dana kale laga yaabo inay u joogaan halkaasi inaan ku qancino ama ku baraarujino ugu yaraan in waxbarashana ay galaan in sababtoo ah qofka maanta laga yaaba in uu rajaynayo inuu halkaasi kaga sii dhoofo wadamadan Yurub ama America meelahaas oo kaleenta
in meeshaas uu joogi karo sanado badan. Marka sanadahaas intay ka beeldaroobi lahaayeen inta badan waxaan ku wacyigelin jirnay inay waxbarasho oo kaleeto meesha ka bilaabaan. sidoo kale dhiirigelin baa siin jirnay oo ah inay waxbarashadaas bilaabaan oo kaleeto. qaarkood markaasi ay suurtagal laga yaabo inuu noqoto iyagoo waxbarashadii dhameystay processkeedii kaleetona uu suurtagalay markaasi ay baxaan. sidoo kaleeto isdhexgalka aad ugu shaqeyn jirnay ka dhalinyaro ahaan haddii ay ahaan lahayd dhinaca sportska oo kaleeto inaan u sameyno iyo ama haddii aan lahayd seminaaro ama tababaro ku aadan sidii xitaa doorka wadanka oo kaleeto dhalinyarada ay ugu qayb qaadan lahaayeen. isku xirnaansho guud baa jiray oo runtii ah dhalinyaro iyo ka arday ahaan intaba. waad mahadsan tahay. waxaa siinayaa Axmed Maxamed Nuur arifka ayaa siinayaa arifow. waxaad sheegtay qodobkanu maanta wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ma yihiin kuwa han siyaasiya leh. dhalinyaro fara badan ayaa waxay naga fiirsanayaan telefishinka qaranka Soomaaliya. dhalinyaradaasi waxaa laga yaabaa qaar ka mid inaanay ogeyn waxay doorasho tahay. waa doorashada sharxaad ka bixi. horta haddaad dhalinyarada badankood maahan kuwa horta doorashada haddii la doorashada dhalinyarta waxay u fahamsan yihiin waana la socdaan xaaladda doorashada. doorashada waagii hore waxaa lagu soo dooran jiray xildhibaanka waxaa laga soo dooran jiray beeshiisa oo inuu beeshiisa tago gobolkiisa ama gobolka u dhashay aad laga soo xulin jiray. haddeertaan doorashada la rajeynayo mustaqbalka dhow oo soo socota inay qof iyo cod noqoto ee dhalinyarta codayaan ugu badnaan inay codayaan. siyaasada doorashaduna oo haddeertaan jirtana waa doorasho oo la rajeynayo inay noqoto mustaqbalka dhow. laakiin hadda waxay ku dhici doontaa inagu ma hayno. laakiin mustaqbalka Soomaaliya meelahay higsanayso waxaa ka mid ah in ay aado doorasho toos ah. doorashada tooskaana waxaynu isla qiray populationka ama shacabka Soomaaliyeed in 75 ay dhalinyaro yihiin. marka dhalinyarada tusaale ahaan kale qodobkuna wuxuu ku saabsanaa dhalinyaradu ma yihiin kuwa han leh. soo halka fursado kuma jiraan fursado dhalinyarada Soomaaliyeed ka banaan. fursado aad u banaan ku jirto meesha ay ka faa'iideysan karaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo haddeerta haddii la dhaho dhamaantood horta waa arday ka wada baxday jaamacadaha dalka wada aqoonyahan ahna hadday saasay tahayna badankooda waa ardayda ayaga iscaawiya oo bartaan nin walba xirfad la imaado. mar walba nin xirfad waa qof walba xirfad gooni oo keensanaya dhalinyarta dhalinyarta kalena garab ay ku siinayaan. haddii haddeertaan la dhahona doorashada aadaya wadanka dhalinyarta ayagaa is caawinayo oo intii loogu talagalay inay codayso aadi karo doorasho qof iyo cod. marka dhalinyarta waa kuwa aad ugu diyaarsan hanka siyaasadda oo inay isgarabsadaan oo halkii hore ee la taagnaa hore uga maraan hore ugu soo socdaan. aad buu masatay bayhada ku darsan Cabdirasaaq fiidka haya waxaa jirta fursad weyn waay hadda tusaale ahaan oo kale haddii doorasho cod qof la gaaro fursad weyn waay ilaa publishka wax soo dooranayo waa dhalinyaro. waa sax. laakiin hadda su'aasha waxay tahay dhalinyarada hadda jirta fursadaas birita meeshii la rabo ma dhihi karaan ma ka faa'iideysan karaan. waa may qof dhalinyaro maanta weli waxa weeye ku jira systemkii qabyaaladda ku jira nooc oo aanan diyaarsanayn biri fursadaas laga faa'iideysan karo. waxa weeyaan dhalinyarada maanta waa kuwa dana gaar loo kala haysto ma jirto. Cabdulqaadir aan ka dhaxgal kugu soo celin doonaa. soo ma jirto dhalinyarada Soomaaliyeed in maalinba maalinta ka dambaysa ay soo fahmay waynu ognahay oo dalka Soomaaliya in ka badan 28 sano ayaa burbur lagu jiray. dhalinyarada Soomaaliyeedna waxay u badan yihiin intii qaan gaadhay intii dalku u burbursanaa. soo ma jirto dalka in maalinba maalinta ka dambaysa dhalinyarada Soomaaliyeed ay wax soo fahmayaan hadday doorashada tahay hadday tahay in qabyaaladii laga soo gudbay hadday tahay waxay wadaniyadu tahay dhalinyarada soo fahmaya soo ma jiraan. way jiraan dhalinyarada soo fahmaysa laakiin ma aha number badan. tusaale ku siinaya dhalinyarada maanta hadda doorashadaas oo kale inta fursad waxa looga faa'iideysan karaa dhalinyarada maadaama inta ugu badan wax codeynaya iyaga ay yihiin haddii dad dhalinyaradu isku xiran yihiin oo ay yihiin kuwa qarannimo ka shaqeynaya waxaa meeshaas imaan kara maadaama dee uu xanibayo qofka madaxtinimada isku sharaxaya da'diisa ay xanibayso qof dhalinyaro uusan ahayn oo number 40 sano uu yahay da'daas ay xanibayso laakiin ugu yaraan qof madaxweyne wadanka samata bixin kara u qalma
in lasoo doorto laakiin haddii weli dhalinyaradii ay kala qoobsan yihiin oo aysan fahamsaneen midnimada guud oo aysan fahamsaneen ujeedka guud iyo hami fog haddaysan lahayn ma soo saari karaan tusaale ahaan oo kale hadda dhalinyarada sanadihii dambe waxaa laga yaabaa inay baarlamaanka oo kale way soo galeen laakiin 4 sano hadda way dhawaatay natiijo maxay sameeyeen malaha horta dhalinyarada waxay sameeyeen malaha horta dhalinyarada go'aamada waaweyn waxba kuma laha kulligood waa aragtay ragga hadda baarlamaanka ku jira dhalinyarada ah sababta waxaa keenaysa qorshe ma lahayn hami fog qorshe uu sanadkan 4 sano oo karo sanadkan iyo sanadka xiga uu iska soo galay waxaa laga yaabaa in qorshe inuusan u degsaneyn oo brentiyo brand wana kaarkaas iska qaatay baarlamaanka meesha raba iska maraya shirarka iska qayb galaya iyaga dhalinyar ahaan inaysan isku xirneen in aysan lahayn isku xirnaanshahaas badan laakiin natiijana inay sameyn karaan laakiin qofka hadduusan hami meeshaan kusoo gelin wax ma dhaamo odayaashii dadka kaleenta ee siyaasadda kaga horreeya ama baarlamaanka ama kursigaas kaga horreeya wax natiijo kusoo kordhiya cabdiqaadir waad mahadsan tahay si fiican baad u sharxday waxaanu rajaynaynaa baarlamaanka soo socda insha allah la sugayo in intooda dhalinyarada inay isku xidhnaadaan oo ay unit ahaadaan ayaanu rajaynaynaa waa baarlamaanka soo socda haddii aad tidhi kii hore iskuma xidhnayn waan rajaynaya laakiin waxaa isla farta taagayo oo doonaya inuu erag ka dhaho saaxiibkay alifkaye horta dhalinyarada haddii hadda la fiiriyo siyaasadda go'aamo oo kooban oo ay ku leeyihiin oo waa aragnay waxa ugu badan hadeertaan degmooyinka oo kaleeto dhalinyaraa wada heeso nin gobolka banaadir tusaale marka loo tusaale ahaan marka loo soo qaato kale dhalinyaraa wada heeso oo xafiisyada dowladda oo kaleeto iyo ciidamada zaa'id ugu badiyin dhalinyaraa wada joogto oo ardaydii wax barataa ku wada jirto oo kaleeto marka dhalinyarta haddii la dhaho go-aankooda oo hadda siyaasadda kuma lahan waa ku leeyihiin haddii si loo fiiriyo kale wayna ka buuxaan marka cabdiqaadir waxaa u malaynayaa weli qolo yar buu arkay oo aan saas u badnayn marka haddii la dhaho dhalinyarta baarlamaanka oo kaleeto aaday ugu badiyiin bulshadana aad waxay ku leeyihiin hay cabdiqaadir wuxuu xusay iyadoo saa loo badan yahay wuxuu xusay in aanay isku xidhnayn ma jirto baad leedahay inaan isku xidhnayn way isku xiran yihiin dhalinyarta adaa huba walaalka axmed hadda gobolkooda tusaale usoo qaatay ma diidani in badankooda dhalinyaro ay yihiin maxay soo kordhiyaan guddoomiyaashii kaga horreeyay resultiga ama natiijada ama wax ay kaga duwan yihiin oo maanta muuqato cad ma jirto taas waay waxaan ka hadlayno qofka fursada uu heli karo iyagoo dhalinyaro ah waxaad leedahay iyagoo dhalinyaro ah guddoomiye ku horreeyay waa yeelka ahaa wax ma dhaamo maxba ma dhaamo baad leedahay waxba ma dhaamo sababtoo maya ninka dhalinyarada maxamed basfaasha ka jawaab ninka dhalinyarada horta oo hadda guddoomiyaha degmada laga dhigay waa inuu horta kow oo helaa bulsho la shaqeyso bulshada la shaqeyso hadduu helo oo ka timaado bulshada qaybaheeda oo bulshada qaybaheeda kale dhalinyaraduna ugu badan dhalinyaraduna ugu badan tahay kadib wax uu qaban karaa oo wax qabadkiisa waa arkaysaa laakiin haddii uu asiga dhalinyartiiba ka jiifto ama dhalinyar badan oo fikirka oo guddoomiyaha qaadanin oo micnaha ay ka dhigtaan qof oo labato kaleeto ma soconayso marka ninkaasna waxaa waaye hadduu wax qaban lahaa xataa waxa uma qabanayo waad maasan tahay cabdiqaadir waa runtii waxaa jira dhalinyaro fara badan oo gobolka banaadir tusaale ahaan kale markaanu soo qaadano gobolada kale soomaaliyana waxaa laga yaabaa in ay ku jiraan sidoo oo kale waxaa jira inay golihii baarlamaanka ay ku jiraan mawaana waxaasoo dhan kuu muuqanaa dhalinyaradii ku jiraan ku jiritaankooda iyo dhalinyarada anaga waxa sida laga rabo inay noqdaan isma laha fursadda qofku wuu heli karaa laakiin waxa la doonaya waxay tahay fursaddan maadaama ay heshay in ka dhalinyaro ahaan waxa weeyaan natiijo ka duwan natiijada dadkii hore ama meesha isbedelkaas dhalinyarada inay ka muuqdaan in qofku uu leeyahay hami iyo sidoo kaleeto qorsho siyaasadeed oo meesha uu ku tagay oo markaasi uu hirgelinayo laakiin haddii meeshaan aniga maanta iska imaado oo waxa weeyaan ilaa waqtigeyga oo ka dhamaada aan iska joogo keliya oo aan titlekaas iyo waxaas iska waxaysto qofku fursadaas uu soo mari karaa wuuna heli karaa hadda tusaale oo kale maamul goboleedyada nidaamka lagu soo xulo baarlamaanka oo kale waxaa soo xula nidaamkii weli odayaasha oo ay waxa weeyaan soo qorayeen oo soo gaarayeen haddana soo lagama gudbayo waxyaabaha higsanayna in laga gudbo soo kooban mid ah qorshaha Soomaaliya ugu jirta way ka mid tahay laakiin dhalinyarada aan ku sheegay hadda weli waxaa laga yaabaa qofka maadaama tusaale ahaan kursiga maamul goboleedka ay ku leeyihiin beel haddii dhalinyarada dadkaasi ay yihiin dad isku xiran sooma soo saaran lahayn qof iyaga ay wataan oo macquul weli odayaashii soo saaranaya dad iyaga oo dhalinyarada waad maasan tahay cabdiqaadir gabagabadii ayaan kusii dhownahay dad badan baa jira oo hadda telefishinka qaranka naga fiirsanaya sidoo kale radio muqdisho naga dhagaysanaya idinkuna dhalinyaraatiin weliba dadkaasi waxay u badan yihiin dhalinyaro
waa maxay fariinta ku saabsan qodobkeena maanta aynu ka doodana ah dhalinyaradu ma yihiin kuwa ka qayb qaadan karaa ama u diyaarsan inay ka qayb qaataan siyaasadda dalka waxaan ku horreynaya axmed horta dhalinyarta oo hadda na dhegaysanayso cabdiqaadir warkiisana dhegaysanaya aad iyo kaagana dhegaysanaya kaygana dhegaysanaya raaca kaagana dhegaysanaya marka waxaan kula talin lahay ama aad usoo jeedin lahay isku xirnaantooda inay aad uga shaqeeyaan muhiim u tahay muhiim ay u tahay hadday isku xirnaadaan wadan walba waxaa waliba axmed maxamed oo aan kaa dhex galo sax dhalinyarada soomaaliyeed hadda gobolka banaadir oo kale xiriirka ka haya sax ama ciidamada ku jira ama baarlamaanka ku jira cabdiqaadir tiisiyaanoo ka daba tegaya haddaana isku xidhnaan oo aanay wada shaqeyn soo ma ogid in aanay waxba qaban karin waxba ma qaban karaan ku socdo marka haddii isku xirnaanin maaragta waa dadkii hore naga horta odayaasha hore meelayna soo gaarsiiyeen waa sax ma diidanin oo ayaga ku dayanay oo gacan saaran marka haddii haddeertaan oo dhalinyartaan hadda joogto hadday ahaan lahayd baarlamanka hadday ahaan lahaayeen degmayaasha degmooyinka oo gobolka banaadir oo kaleeto ay hadda sida hadday isku xirnaadaan waxaan rajaynaynaa inaa nimankii naga horeeyay odayaasha oo kaleeto meeshay keeneen inaan kasii wadno oo weliba wadanna waxaa dhisa dhalinyartiisa marka haddii mar dhalinyarta isku xirnaadaan waxaan rajaynayaa inay gaareen yool fiican haye cabdiqaadir waa mahadsantaha cabdirasaaq dhalinyarada ani fariintan u diri lahaa waxa ay tahay in kuwa hadda doonaya qorsheynaya inay siyaasadda soo galaan ama fursadaha raadinayo war intaadan horta fursadda raadin qorshe haddii fursadaas heshid kuwa qorshaysan qofka inuu lahaado waa inuu hami fog lahaado dhalinyarada in midnimadooda ay ka shaqeeyaan in laisku yimaado in laga soo gudbo nidaamka qabaliga ah ee waxa weeyaan maadaama annaga waxa doonayna waxa ay tahay maadaama dadka populationka ugu badan aan nahay wadanka in awoodeena 75-kaas la sheegayo maalin walba ee la leeyahay dhalinyarada waxaa tihiin mustaqbalka berita siyaasiyiinta ee leeyihiin berit waa sheekadii deen maanta maya beriha daa'imaad sheekadii meeshay taagan tahay ani marka hadda ma haddii da-da dhalinyaranimo 45 sano haddaa gaaro waa in ra-iisul wasaare ama wax kale helo dhalinyaranimo kuma helin already waa ka baxay marxaladaas oo marxaladii dhalinyarada waxaad ku heshay meedhaxaad ku heshay marka waxaa loo baahan yahay ama xagga odayada cuslaadaba aad iyo aad marka dhalinyarada waa inay fahmaan da-da dhalinyaranimo inta lagu jiro cadadka dadka ugu badan wahay in isku xir in populationka 75-kaas baawarkeeda wadanka inay ka muuqato waa maasanta su'aal baan rabaa labadiinaba inaad dhex dhigo ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxa jira fursado ka shaqeyn kara isku xirkooda aaladan baraha bulshada ka door cankeeba ku leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed si fudud isugu xidhnaadaan aan ku horeeyo ahmed horta baraha bulshada dhowr qaybta waliba gruubada loo sameeyo cidda samaha sida ka socona sida haddii aan lahayd Facebook ama WhatsApp waxay door fiican ay ka qaadan kartaa adiga because dhalinyar oo waxaa jirto gobolka banaadir maahan gobolada dalka oo kale wada joogaan ayagoo meel walba wada joogaan ay isku xirnaan karaan guda iyo dibadba meel walba ay iskala socon karaan meeshaas marka isku xirnaantooda ma ku koobi karaan in lis arkale ma ku xirnaanaysa waxay ku xirnaanaysaa in oo la wada xiriiro arrimo lisla meel dhigo go-aano lisla meel dhigo then laga miro dhaliyo marka dhalinyarta si walba ha ahaato meel walba ay joogaan aniga waxaa leeyahay waa ujeedaan inaa waxa jiro inaa isku xirnaatiin ayaa muhiim haya waxaan siinayaa cabdiqaadir okay cabdisaaq Umar Cabdullaahi social media isku xirnaan fiican waa laga sameyn karaa tusaale ahaan oo kale hadda waxaa jirta anaga ardada qaranka Soomaaliyeed oo aan Yohana Gudoomiyaha uga ahaa ilaa 25 wadan oo waxaa jirta ardayda Soomaaliyeed wax ka bartaan oo wakiilo noo joogaan isku xirnaanta marka in hadda 25kaas wadan maanta ani hadda u baahdo dad laga yaabo inaan weli laakiin wada shaqeyntaas dhanax marta in si wanaagsan loogu soo dhaweeyo soo marka dhalinyarada isku xirnaantaas waa la sameyn karaa in group iyo meel walba ay joogaan isku xirnaado in ayaha iyo mustaqbalkooda laga meeshaas kaga wada hadlaan marka platform fiican waaye marka loo fiiriyo waayihii hore iyo hadda fursad kale inta aan haysano waaye oo ay tahay in laga faa'iideysto inkastoo aysan muuqan haddana dhalinyarada waxaan ku wacyigelinayaa inay isku xirnaantaas muujiyaan haddii as arday ahaan iskugu xirmi karaan mid region ahaan adduunka meel kasta ay ka joogaan isku xirkaas iyadoo laga faa'iideysanayo casriga aad baad mahadsan tahay guud ahaanba barnaamijkii madasha dhalinyarada kala socoteen telefishinka qaranka sidoo kalena ka dhageysanayseen
radio muqdisho intaasuu nageeg yahay waxaana igala qaybgelayay oo maanta marti noogu ahaa axmed maxamed nuur oo loo yaqaano arifka iyo sidoo kale cabdulqaadir cumar cabdulla isna loo yaqaano fiidka labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee aragtida dheer leh aad bay ugu mahadsan yihiin waqtigooda ayna siiyeen way ka mahad celinaynaa aad bay u mahadsantihiin saaxiibayaal tan iyo intaynu barnaamijka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo